السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان waxaan aad u salaaminaa shacabweynaha reer Soomaaliland meel kasta oo kaga sugan yihiin dhammaan dacallada dunida. Waa mar kale oo muddo sanada aanu hawshii dib uga bilownay sidii caadada ahayd. hawshii aanu ka bilownay horaanta ama afaafka xafiiska qaramada midoobay kaasoo ahayd dariiqyada aanu ku raadinayno ama aanu ka dhiganayno inaanu ugu dhawaano sidii ictiraaf loogu heli lahaa wadankeena Jamhuuriyadda Soomaaliland. dhammaanba shacabkeena Soomaaliland meel kasta oo aad joogtaan waxaanu marka koowaad idinku hambaliyeynaynaa sanad guurada 24aad ee ka soo wareegtay maalintii dib u soo noqoshadii qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaanu maanta barnaamijkeena nala jooga gudoomiyaha jaaliyadda Khadar Xasan. waxaanu leenahay ku soo dhawow. السلام عليكم خضر. السلام عليكم Soomaaliland ay tahay dawlad guuleysatay lagana soo noqonaynin hadii ay gaadho 100 sano iyo wixii ka badan. maanta halkan waxaan u taaganahay sanad guura kasta oo sameeyno waan hajaabiyo Soomaaliland inaan weydiisano xaqlanahay inaan weydiisano sanadguuradii 24aad tahay in ay dhammaan حاجة قيبتي حديثة ونقول لنا الناس هذا ورقتي أنا كويسني اعتراف وسوون أحسن قدوم يا خضر وعم كويدينيا muddo waa markii labaad xafladan anagu idin kala qayb galo laakiin xafladan ayaa dabaaldegan iyo marnaanbaxan oo ahaa mid soo jireena oo soo wadeen muddo aad u fara badan. maanta waa sanad kadib markii labaad idin kala qayb galayno annaga iyo jaaliyad fara badan oo reer Soomaaliland. isbedelkaaga iyo dareenkaagu muxuu yahay aad dareemayso muddo sanada kadib ama muddo intii aad soo bilowday kadib maxaad shucuur dareemaysaa? سنة بسنة سيدا ميانا إن أنا كسي دواني حقيقتي أما كسي دواني إن أنا طلابه هروب سيقا من هالكي أنا سوي كيهر تاقنين حبكا اعتراف دون كعبين وقت إن الواحد نقول نعبا لامها يو أنت إن الواحد نقول لامها دولة السودان لأن كاميرا دولة سويسرلاند إن أنا حليب كذا إحنا شعب الصومالي شعب سويسرلاند إنهم كذا إنه تيتانك سوماليلاند ما أنت يجوا أي دمان كده نسيني هنا وقت يهرب واحد هو هي تصل لو كذا إنه قال لي هذا سوماليلاند وين هو أفريقيا لكن سنة ده هم تنبه شعب سويسرلاند يجوا أقوم بدن أصيله ما أنت سوماليلاند واحد تاعي واحد بدي يحكي واحد تيتانك هي ميلادي واسو wanaagsan gudoomiye Khadar su'aasha labadan ku weydiinaya waxa tahay faa'iido intee leeg ayaynu ku qabnaa inaynu halkan oo kala nimaadno aynu ka dhiibano shucuurteena dareenkeena iyo banaanbixeena iyo gooniisitaaga qarannimada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. intee in leeg ayay faa'iido inoo tahay ama ay wax kororsi inoo tahay inaynu soo istaagno xafiiska qaramada midoobay oo xafiiska ugu sareeya caalamka markaan eegno siyaasad ahaan inaynu maanta soo istaagno muddo waliba badan ay soo istaaginay imikana aan diyaar u nahay inay sii istaagno maxaad oran kartaa bulshada u gudbin kartaa faa'iido way inoo tahay
waxaan ugu gudbin karaa faa'iido weyn weeyaan waxaan halkan aan maanta taaganahay waxa weeyaan dadka adduunyada oo dhami ay hor istaagto ee ay adduunyada oo dhami inta dawladda ka jirta ama shucuub ka jirta ay hor timaado ay weydiisato xuquuqdooda iyo jiritaankooda. aad baad u mahadsantahay gudoomiye Khadar. gudoomiye Khadar waxaan ku weydiinayaa sidaynu arkayno halkan waxaa ku suran calaamad aad u fara badan oo ka soo jeeda dhammaan wadamada dacallada dunida meel kasta oo yihiin. innaguna maanta waxaan halkan u taaganahay kulli waa hadaf, waa himilo, waa rajo, waa si aynu halka wax ugu darsano. maxaa ay tahay rajadeena aad halkaas aynu calaamaanteena si aynu u sudno, aynu horumar uga gaadhno, aynu u noqono wadan ka mid ah bulshada caalamka iyo beesha caalamka. maxay tahay fikradaada guud aad naga siin lahayd? fikrada guud aan iska siinayaa waa mid gaaban. waxaan fikradan halkan ku soo jeedinayaa waxaan doonaynaa haddii ilaahay nabta noo daayo sanadaha soo socda in caalamkan Soomaaliland ka dhex noqdo calaamadan oo ka mid noqono bulshada adduunyada sida ay maanta u tahay adduunyadii magaalo kaliya u noqotay inay magaalada adduunyada noqotay aan ku noqono. marka halkan waxaan ugu hanweynahay oo sanad kasta oo nimaadna waxa weeyaan in caalamkan caalamka Soomaaliland uu ka dhex noqonayo calaamadaas ayaa himiladeedu oo ku rajo weynahay sida si dhawaan inuu ka muuqan doono. aad baad u mahadsantahay gudoomiye Khadar. waxaa kale oo ku weydiin lahaa kolley maxaa inagu dadaal baynu halkan maanta ka haynaa, kolley candana waa xubin dadaal baynu halkan ka haynaa. maxaad fariin u dir lahayd bulshadeena Soomaaliland meel kasta oo ay kaga sugan yihiin dacallada dunida iyo daafaha dunida inuu qof waliba ama shakhsiyan iyo jamac iyo mufrad iyo dad badan iyo in yar wadar iyo qof kaliya taba in qof waliba dadaalkiisa sidee u wado oo loo kala hadhin? waxaan fariin ugu dirayaa hadafkooduna mid noqdo kaasoo ah inaanu gorgortan geli karin marnaba boolistaagga Soomaaliland hadday qaadanayso waqti dheer. taasaan filayaa inay sidaa gacmaha soo haystaan, saa ay isu jecelyihiin, saa ay wada xiriiraan halgankiisana qof kastaaba ka sii wado siduu ictiraaf dalka waxa u maqan waxa weeyaan dal kasta jaaliyadiisa dabadda ama diasporaha wax loo yaqaan ayaa u maqan. marka dalkii wuu sugayaa mid kastooba dalkii uu ku sugayaa. marka wax qabad iyo wax tarba waxa samayn karto qof kastooba waa laga filayaa dalka in halkan karaan halka ka sii badalo sanadkan sanadka dambeeya mid ka sii weyn si gaar ilaahay hadduu naftiisa dhammaan bulshooyinka Soomaaliland meel kasta oo dacallada kaga sugan tihiin annaga oo maanta hor joognaa xafiiska qaramada midoobay ee dalka magaalada Geneva ee wadanka Switzerland. waxaanu halkan u taaganahay si aanu uga dhaadhicino go'aansiyada iyo qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. annaga oo maanta halkan isugu nimi bulsho badan oo reer Soomaaliland tan oo aanu ahayn mar kasta kuwa ku soo noqda oo halkan yimaada midooyin sanadii u dambeeyay ayaa waxaanu maanta halkan u taaganahay inaanu ka gudbino qadiyadayada aanu shucuurtayada ka dhiibano. dhammaan bulshada Soomaaliland meel kasta oo caalamka ka joogaan waxaanu leenahay oo ku boornaynaa inay qof laba qof ilaa iyo intay kari karaan ay meel uga soo wada jeestaan qadiyada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo loo kala hadhin oo loo guntado. waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaa sanad guuradii 24aad ee ka soo wareegtay maalintii qarannimada go'aansiyada Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan rajaynaynaa insha Allah inaanu sanadaha soo socda ilaa intan wadanka ictiraaf u helayno inay sii socon doonto dadaalkana aan halka laga hadhayn oo sii soconayo insha Allah haddii Ilaahay nala galab karo. waxaanaanu mar walba inoo balana wada jir. hadda waxa sii gudagelaya hawshii waraaqaha lagu wareejinayay. waraaqahaas oo ku qoran tahay waxyaabihii information ee wadankeena iyo maalinteena qarannimada go'aansiyada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hadda ku wareejin doono gudida u xil saaran arrimaha ictiraaf raarinteena qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiye Khadar oo hadda hawshii si toos ah ugu guda jira siina wareejinaya waraaqihii. waxaanu insha Allah rajaynaynaa guul aad iyo u ballaaran inaynu ka gaadhno arrinteena aynu u soo
ku soo guda jirnay aynu dhiiggeena iyo nafteena u soo hurnay muddada 24 sanadooda insha Allah